warar isla dhaxmarayeen shacabka ku dhaqan guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo ku saabsanaa safar la sheegay inuu ka imanayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waaba haddii ay dhacday inuu yimaado madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Hargeysa dadweynaha ku dhaqan degmada Saylac oo iyagu mikrofoonka la dhax qaadnay ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen safarka la sheegay inuu ka imanayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Hargeysa dadweynaha oo iyagu arrimahaas ka hadlaya ayaa waxa hadalooda ka mid ah waxaan ka hadlayaa ra'yi ahaan iyo fikir ahaan waxaan ka qabo siyaasadda inuu farmaajo yimaado waddanka Soomaaliland uu ka soo dago caasimadda waddanka Soomaaliland Hargeysa inuu ka soo dago aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay dhalinta Saylac aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa sababtoo ah Soomaaliland marka ay raadinayso ictiraafka waxa weeye waa stepkii koowaad baan leeyahay ama waa talaabadii koowaad ee hore ugu dhaqaaqaynay haddii aan ka hadalno aan waxba la dilay iyo sidan bay ahayd iyo lafo hore aan soo saarno cuqdadii iyo nafsiyan ay nagu jirto waxa weeyaan halkaas waxba isbedeli maayaan marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland war isbedel iyaan u baahanahay we need a change isbedelkaasi la fahanteena wuxuu ka bilaabmayaa inaan cid kasta oo dan inoogu jirto soo dhaweyno marka farmaajo danta inoogu jirta waxay tahay Soomaalinimo dan ahaaneed bay inoogu jirta derisnimo ay inoogu jirta ictiraafka aan raadinayna laftarkeega iyaynu kala hadlaynaa adan soo dagaalanayna anagu imaanshaha madaxweyne farmaajo ka dhalinyar ahaan iyo aad baan soo dhaweynaa inuu madaxweyne farmaajo yimaado Hargeysa waliba aad baan soo dhaweynaa waliba waxaan khaasatan jeclaan lahayn inuu gobolka uga yimaado maadaama uu farmaajo yahay uu madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed halkan madaxweyne biixi uu joogo halka fursad baa Soomaaliland uga banaan wali ma dhicin inta ay Soomaaliland jirtay madaxweyne waddan kale ka socda ama la aqoonsan yimaado Soomaaliland ama hadii Abiy Ahmed uu yimaado labadaba Soomaaliland sumcad iyo maamuus bay u tahay in ay labadaasba imaadaan dhinaca kale hadii ictiraaf ay noqoto ictiraafkii wan weynay ictiraafkii hadii la waayo saddex sababood baa Soomaaliland in dadka lagu qanciyo hadii ictiraafkii waanu haynaa waa kan iyo waanu weynay iyo maxaa la yeelaya ictiraafkii waa la waayo 30 sano la raadinayay midda labaad wax dhinac loo socdaa oo dhinac loo jihaysan yahay ma jiro aan markaa waxaan oran lahaa tala ahaan in madaxweyne farmaajo lagu soo dhaweeyo Hargeysa si meeqaam sare loogu soo dhaweeyo wixii turxaana jira wixii la kala cabanayay labadaba in laga wada hadlo halka lagu wada hadlo wixii ay Soomaaliland tabanayso iyo wixii ay ka tabanayaan walaalahooga koonfurta Soomaaliya ibn Axmed Yaasiin waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac saad u aragtaa hadalkan oranaya imaantika madaxweynaha dowladda Soomaaliya farmaajo maxaa ahayd inkastoo aan hadalka la hubin balse haddana lacalla haddii ay dhici lahayd inuu yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saad u arkay bismillaahir rahmaanir rahiim horta Soomaaliland nasiib uma helin inta jiritaankeyga uu jiro madaxweyne dal oo ka soo dagaa cigaal international airport waxaan qabaa maanta farmaajo hadduu ka soo tago fursadii koobaad inay tahay iyaduna inay samayso Soomaaliland la fahanteedu madaxweyne Muuse Bixiyo soo dhaweynayay iyo ka soo dagayba bumbaydii labada calan iyo labada miisigba in la waxeeyo taa lafteeda aqoonsiga waxyaabaha madaxweynayaashu ay u iman laayihiin waxaa ka mid tahay ama waxyaabaha aqoonsiga wuxuu ka mid yahay bumbaydan la tumayo iyo miisigan labada calan loo surayo astaantii calanka mar haddii uu soo dago oo soo dhaweyn lagu soo dhaweeyo kii Soomaaliland iyo kii Soomaaliya la agsado oo astaantii calanku halka ay waxaystana aqoonsi ka horeeya taas ma jiro waxaan qabaa inuu imaado oo la soo dhaweeyo calankeeni iyo bumbaydeeni iyo miisigeeni iyo kii Soomaaliya labadaba la qaraaco labadaba lagu soo dhaweeyo taabaan kulay anigu qabaa waana fursad baan leeyahay meesha ka banaaneed marka hore fursadana laga faa'iideystaan leeyahay waa haduu yimaado weeyaan Soomaaliland ahaan maxaa faa'iido ugu jirto marka loo eego aqoonsiga maxay Soomaaliland imaashaha madaxweynaha farmaajo taan ku sheegay lafteeda faa'iido miisiga la tumayo astaanta calanka la surayo laba astaamood ee calanka la isgarab surayo waa isku mid leeyahay maanta waxay qabtaa Soomaaliya inaan Soomaaliland inay ka mid tahay inakuna waxaan qabnaa inaan ka go'an oo laba aan nahay laba dalo walaalo Soomaaliya inaan nahay Soomaaliland iyo Soomaaliland kala nahay waxay kala cadeynaysaa imidkiisaas soo dhaweyntaas astaanta calanku waa cadeynaya inaan laba kala nahay
oo Soomaaliland inaku aan nahay iyaguna Soomaaliyiin miisigoogii Soomaaliya toosan la tuso inakana Kenya la miisigeeni bumbeedeeni la qaraaco soo dhaweynta halka ka wacso nin dal kale imidu farmaajo markaa ku noqonaya laakiin waxa qaba inuu ku dhicin buuran ka soo degay Hargeysa horta Soomaaliland nahay sagaalada sano aqoonsiga hayna iftiraadin soo weynay meel kasta marnay madaxweynaha musabbix cad maray wadamada caalamka gudaha meel kasta soo weynay ka dantu waxa ku jirta waayo Soomaaliland waa wadan kaliya oo Soomaaliland ku wadaxsan magacayna wadeeqa Eritrea Ethiopia waa ka islaayeen 20 sano kadib halkii ay col haayeen oo ku heshiiyay oo maanta midoobay oo walaalaha Soomaaliland maxaa u diiday inay walaal noqdaan oo danahooda ay ka tashadaan iyo Bismillahir Rahmanir Rahiim anigu waxaan leeyahay fikir ahaantay looma iman karo waxaan oo keenay laba dawladood baan kulanay aniga Soomaaliland baan yiraahdaa isna waa Soomaaliya dalkiisii wuxuu xukumi kari waayay marka nin meeshiisii wuxuu xukumi kari la inuu anaga noo yimaado ma dawlad baan leenahay madaxweynaha iyaga ayaan soo dhaweynaa safarka Itoobiya ku tagayna aad buu wanaagsan yahay waan ku hambalyeynaa madaxweynaha waxaan leenahay nooma iman kara farmaajo haddii Hargeysa yimaado horta haddana dhalinyarta gobolka Siril horta aad baan ugu faraxsanahay inuu yimaado madaxweynaha Soomaaliya aba madaxweynaha Soomaaliya oo dhan yimaado magaalada Hargeysa aad baan ugu soo dhaweynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan Soomaaliya oo dhan midowdo oo meeshan Siril san loo seeyay ay noqoto magaalada madax banaan oo tikadeeda iyo wadadeeda iyo wax walba loo dhameystiro insha Allah tasarrajiniya ضروري وي Hargeysa qaadan maayo inuu yimaado waa daruuri Hargeysa qaadan maayo maxaa dan ugu jirta imaashaha farmaajo laal hadii ay dhacdo bana fara badan oo maxaa kamid ah imaashaha madaxweynaha dawladda federaalka ama waynu heshiina waynu Ali Ahmed Diiriye Ali Dhagadrool wararka badda cas TV magaalada Siila